السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعندنا وضيال كسر هذا برنامج جاره وأنو إنه السعودية كمدحوينها جمهورية الفدرال كصوماليا محمد عبد الله فرماجو وكم رئيس دجاجة بنتلان. halkani waa garowe marka laga baxayo oo loo socdo dhinaca magaalada Boosaaso madaxweynuhu waxa uu safar ku mari doonaa deegaano ka tirsan gobolada Puntland ee ku teesan jidka laamiga barnaamijkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa deegaanada ay tagaan iyo sida loogu soo dhaweeyo waatay daawadayaal halkan hadda aan ku sugannahay waa deegaanka Sunjiif oo ka tirsan degmada Garowe ee gobolka Nugaal waxa halkan si aad arkaysaan dadku ay laamiga u taagan yihiin oo sugayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay la taagan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka magacaaga igu bilow maxamed jiraal leeyahay xogayaha magaalada Sunjiif ee tuulada Sunjiif dadkan intaan tiro la exact sida isugu saarteen dadkan waxaan isugu soo saaray waxay la socdeen ogaayeen in madaxweynuhu soo mari doono sida la sheegay waxayna soo istaageen goor subax waabarkii iyo bacda salaad intii ka dambeysay bacda quraacda la sameeyay dumarada waa soo baxeen odayaashuna bacda salaad bay halka yimaadeen inta diyaar baa loo ahaa si madaxweynaha loo soo dhaweeyay Farmaajo sida dadkan aad ka arkaysaan waxay ku qeylinayaan magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad ayay u qiireysan yihiin waxay ruuxayaan caleemo qoyan iyo calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo calanka Puntland mar dhow ay halkan soo gaarayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Maxamed Algaas oo wafdigan hogaaminaya deegaano badanna mari doona هذا مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو waxa uu ku sugan yahay degmada Dangaroyo ee gobolka Nugaal waxa uu salaan saf dheer ah ku soo wada bulshada u taagneed wadada muddada badan sugaysay madaxweynaha waxa ku helinaya safarkiisa oo safar dhulka ah oo Boosaaso ilaa uu ku gaari doono madaxweynaha Puntland Cabdullaahi Maxamed Algaas وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها دولة الفدرالكا مدن محمد عبد الله فرماجو مدحوينها دولة بوتلان مدن عبد الولي محمد علي قاص وفتق عالمي كسعة الدولة الفدرالكا هي دولة بوتلان لما waxaan ku salaamayna kambaniga Chinese-ka CC wadadaan wada dhammaan waxaan ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne halka waxa farxad maanta noo ah inaan idinku soo dhaweyno oo noogu timaadaan degmada Dangaroyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkii waa arkayseen reer Dangaroyo waa teer iyo xal meesha la taagnaa jacayl loo qabo dawladda federaalka ah aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay meesha tan aan ugu timaadeen
waddadan maanta naloo dhagax dhigayna waxay noogu fadhidaa qiimo weyn oo waxay noqonaysaa wadda ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay ka faa'iidaysato aad iyo aad baan idin salaamayaa waqtiga kooban daraadiis والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن كما هندقينا قدامية سودوينتا قيمها بدنا أو سميسين مدحوينها دولة الفدرالية الصومالية أديك شعبك ريدان قريو شعبك أنا مدحوينها أضو نكسون والوية غانا سودوينتا فنتي شعبي وحاوي حلالة وأضو نكسون ومروا البان سودوية كان شغية مصلحة ينود قريادة يخرب مركة مشروعا لسه هيئتنا لهذا CCECC كمان اللي يراهدو وحنا كوي اسكوتشي بودلاند ويو كميديا ايادا ايا هawshaas fulinaysa waa wado socota ilaa degmada Eyl isku xiraysa badii iyo birrigi isku xiraysa weeye waa wadada ugu horeysay ee laami ah isku xirta dhulka xeebaha iyo dhulka birriga ah ومشروع weyn noogu fadhiya insha Allah ku badan oo kalena waa dhagax dhigi doonaa waan arki doontaa waana insha Allah waan rumoodi doonaan marka madaxweyne ku soo dhawow dhagax dhiga bismillahir rahmanir rahim mudane gudoomiye mudane madaxweyne runtii waxa sharaf weyn noo ah iyo farxad inaan maanta kala soo qayb galno iyo sida wanaagsan noo soo dhaweysaan oo aan kala soo qayb galno dhagax dhigan jidka galaya Eyl waxa weeye waa runtii saa sheegtay markay ummad isku tashato oo isxilqaanto kalsooni dhexdooda hesho waxa yimaada horumar yaa yimaada marka waa kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii wax badan yaa muuqda intay aad joogtaad qabatay oo tan aan hadda maanta dul taagannahay ay ugu dambayso waxaan leeyahay hambalyo insha Allahna wax alla wixii annagu federaalka aan ka geysan karno waan ka geysanaynaa hawshan cid walbana waxa loo baahan yahay in isku tashato oo ay isxilqaanto ay isku kalsoonaato horumarkuna waa ku xiga waxaan leeyahay hambalyo waatay daawadayaal hadda waxaanu soo gaarnay deegaanka Yaka oo ka tirsan gobolka Karkaar ee Puntland madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya safarkii uu ku marayay deegaanada Puntland ayaanu ku guda jirnaa halkan waxaa taagan bulshadii oo soo dhaweynaysa madaxweynaha iyadoona madaxweynuhu uu salaan saf dheer ah shacabka gacan qaadayo madaxweynaha Puntland ayaa safarka ku wehelinaya daawadayaal hadda safar dheer kadib waxaan soo gaarnay magaalada Qardho ee xarunta dhaqanka xarunta gobolka Karkaarna ah magaaladii wali maana gaarin meel banaankeeda oo fog ayay bulshada isugu soo baxday oo nooc kasta oo qaybihii bulshada ee magaalada Qardho halkan ay ku sugan yihiin madaxweynaha iyo wafdigiisii wali ma imaan hase yeeshee aad ay u diyaar garoobeen dadka reer Qardhood caleemo qoyan ay qaarkood ruuxayaan qaar waxay ku labiseen dharka hidaha iyo dhaqanka waayeel iyo dhalinyarada looma kala harin halkan reer Qardho say u soo dhaweynayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka waxaan u dhaqaaqayaa dhinaca bulshada si aan u weydiiyo bal dareenkooda السلام عليكم daawadayaal hadda waxaan la taaganahay dhalinyaro qaarkood ay dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu caanka ku ahayd soo xirteen si ay madaxweynaha u soo dhaweeyaan qaarkood waxa xabadka ugu sawiran madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo calanka Jamhuuriyadda ugu horreyn bal magacaaga igu bilow bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Cabdullaahi Xasan Cabdiraxmaan waxaanu xagga u taaganahay waxa weeyaan soo dhaweynta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo run ahaantii looma kala harin soo dhaweynta madaxweynaha insha Allah taala waxaan madaxweyne ku soo dhaw magaalada dhaqanka Soomaaliyeed waan ku wada sugaynaa dhammaan looma kala harin shacabkii dhalinyaro odayaal mataqaana xataa curyaamo iyo dad mataqaana maanta banaanka ku wada sugayaan magaalada insha Allah taala madaxweyne leena soo dhaw runaantii waxay noqonaysaa madaxweynihii u horeeyay oo aanu aragno oo madaxweyne Soomaaliyeed oo noogu yimaada magaalada ama mataqaana aanu aragno insha Allah taala marhaban mudan madaxweyne وتعالوا ما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم magaciigu Cabdikariim Cusmaan TV-ga Puntland oo mahad celinaya oo ka shaqeynaya horumarka dalka hadaan gudaha u galo soo dhaweynta madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waqtiga ballaaran garow ka soo kicitimay maanta waxay noo tahay maalintii la qaatay xorriyadda Soomaaliya
waxa weeyaan laba beri hadda waxaan ku hawlanayn soo dhaweynta madaxweynaha waxaanu diyaarinay dhaqankii fardihii hidiga dhaqankii baa u jeedaa shacabkii ururadii dhalinyarada ururadii haweenka waxa weey looma kala harin magacayga waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaam Maxamed Cali waxaan runtii aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya runtii de halkan ummadda isku soo banaanbaxday halkan kama koobi karo sharaxaad kama bixin karo laakiin waxaan leeyahay madaxweyne soo dhaweeyo aad baan adiga ahaan waliga madaxweynaha Soomaaliyeed maartay طبعا مي هذا البيشي وانت طبعا بسم الله الرحمن الرحيم magacayga dan bilaabo Cawl Xabiib Yuusuf aad baan ugu mahadcelinayaa TV-ga Puntland runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta soo dhaweyno madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed aan ku soo dhaweyno xarunta dhaqanka Puntland Qardho aad iyo aad baan waxa weeye shucuurtayda u kacsan tahay runtii lama soo koobi karo shucuurtayda waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno madaxweynaha waad umaadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Abshir Maxamed Sariif waxaan halkan soo istaagay inaan soo dhaweeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan leeyahay soo dhawaada aad baan soo dhaweynayaa runtii waa markii ugu horeysay aan arko madaxweyne Soomaaliyeed waxaana intii dadka dhashay intii burburka uu dhacay marka aad baan saakay shucuurteedu u kacsan tahay imtixaanku noo socday waana ka joojiyay sababta madaxweyne aad baad umaadsantahay waxaan jeclahay inaan si fiican xabadka u geliyo madaxweyneyga aan aad ula kulmo aad waa maasantahay hadda madaxweynihii baa soo gelaya oo hadda gawaarida madaxweynuhu saarna ayaa soo istaagtay bulshadiina sawaxankooda ayaa yeeraya durbaana ayaa halkan laga tumayaa mar dhowna madaxweynuhu waxaa la filayaa inuu shacabka halkan isugu soo baxay la hadlo isla markaasna uu weydiiyo dareenkooda ku aadan inay markii ugu horreysay madaxweyne Soomaaliyeed reer Qardhood dhalinyarada daadoodu ay intaan la eg tahay ay soo dhaweeyaan si aad arkayseen qaarkood waxay leeyihiin waa markii ugu horreysay oo aan aragno madaxweyne Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku jiraa safar loogu magac daray socdaalkii nabadda gobolada badan ee Soomaaliyana uu ku tagi doono haddii Allah uu wado sida qorshuhu yahay shacabka gobolka Kaar maantay waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo waxaan leenahay daan reer Karkaarnahay mudane madaxweyne soo dhawow waa lagu sugayay oo ku baahnayn shacabkaaga baa u nahay hadii jeer inta ilaa saaka qoraxda wax loo taagan yahay waa soo dhaweyntaada mar walbana waa ku soo dhaweynayaan mudane madaxweyne ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad dalkaagi bismillaah maanta waxa ku sugannahay xarunta dhaqanka guriga boqortooyada magaalada Qardho oo halkaas aan ku soo dhaweynayno xurmad leh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii shacabka reer Qardho aad bay ugu diyaar garoobeen si qurux badan inay u soo dhaweeyaan madaxweynaheena runtii waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow magaalada Qardho waa dadkaagi iyo dalkaagi oo kugu hamuun qaba habeeno Farmaajo Qardho ku soo dhawow dadkaagi ciidaadi ma sha Allah waxaan ku faraxsanahay imaanshaha Puntland yimi madaxweynaha Soomaaliyeed federaalka gudoomiyaha gobolka iyo degmadiisaba soo dhaweynta anoo ku hadlay magaca ururka haweenka Puntland soo dhaweynta oo ay sameeyeen oo qiimaha badan wax taariikh gala weeye soo dhawow baan leenahay madaxweyne صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كمان أمد الصوماليات أو قامنا يوم مدحوينه محمد عبد الله فرماجو مدحوينه الدولة بنتلان لبدا قوليه برلمان كفدرالكا قولها لبدا قوليه حكومة بنتلان يوم برلمانكا
ummadda soomaaliyeed meelay joogto ummadda reer qardhood ummadda soomaaliyeedna aad iyo aad bay ugu faraxday doorashadaadii iyo magacawgii ra'iisul wasaarahaaga iyo golahaaga xukuumadda haddana waxay sugayaan kelmadahaaga qaaliga ah inaad si fiican uga saafido ummaddii reer qardhood ood arkayso tiradooda madaxweynihiinnii oo jecel inaad jeceshihiin ayaa maanta idin yimid idin soo booqday insha allahu isagaan u daynayaa marka kelmaddiisa inuu yidhaahdo aad iyo aad baa umaadsantihiin soomaaliya ha noolaato ha noolaato ilaahay soomaaliya ha nooleeyo ha nooleeyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaada soo dhowaynta adiga iyo dowladdaada iyo shacabka reer qardho iyo guud ahaan shacab weynaha puntland soo dhowayntooda sharafta badan ee diiran waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad yaanu ugu faraxsannahay xaqiiqatan waa filaayey maxaa yeelay waxaan ogaa habeenkii doorashada febraayo 8 saa u soo baxdeen oo aan mar labaad idinkaga mahad celinaayo aad baad mahadsan tihiin idinkoo saakayoo dhan taagan ee qorraxdunu kulushahay soo dhowayntiina wanaagsan oo diiran walaalayaal waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad dawlad jecel inaad tihiin dad dawladdooda jecel inaad tihiin iyo ka turjumaysaa annagana waxaa nagu ballana inaan jacaylkaas idiin soo gudbinno oo aan dib idinkuu soo celinno oo aan idiin adeegno oo aan idiin shaqayno hadduu ilaahi yidhaahdo idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiinna sii waddaan oo aad garab istaagtaan dawladda maxaan ku idhaahdaa puntland aad garab istaagtaan madaxweynihiinna aad garab istaagtaan oo aad taageertaan dawladda federaalkan aad garab istaagtaan oo aad taageertaan annagoo mida oo wada shaqaynayna yaan dalkan horumar iyo barwaaqo gaarsiin karnaa ummaddu markay isku duuban tahay ummaddu markay iskaashanayso ummaddu markay isku kalsoon tahay yay horumar gaartaa soo saas ma aha may maqlaysaan insha allah labada beraani la joogo insha allah waa wada hadli doonnaa si fiican baan idinku warrami doonnaa xaaladda dalku ku jiro idinkuna waa mahadsan tihiin sidaas ugu soo baxdeen iyo taageeradiinna maalinta kulul oo qorraxda joogtaan waad mahadsantihiin walaalayaal waa mahadsantihiin soomaaliya ha noolaato waxaan idiin rajeeyey guul waxaan idiin rajeeyey khayr waxaan idiin rajeeyey horumar waxaan idiin rajeeyey himilo wanaagsan soomaaliya ha noolaato mar kale